odayaashii waxgaradka degmada iyo goori ee gobolka Sool oo maanta warbaahinta kula hadlayay deegaanka Dar es Salaam ayaa sheegay inay taageersan yihiin si buuxdana u garab taagan yihiin xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamada qaranka ee jiida hore ee deegaanka Tukaraq. odayaashii iyo waxgaradkan ayaa ka dhawaajiyay in guud ahaan gobolka Sool uu nabadgelyo yahay isla mar ahaantaasna aan waqti xaadirkan loo baahnayn cid ku abuurta khalkhal siyaasadeed iyagoona maamulka Puntland uga digay arrintaasi. sidoo kale odayaashana hadalkooda sii wata ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhexmartay degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag iyagoona dhinaca kale codsi u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu sii daayo boqor Buurmadow oo ay sheegeen inuu ka soo jeedo degmada iyo goori ee gobolka Sool waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan وآدم عبد أحمد توصل القنطة هذا دونتان وإن عبد قاس كوي شري إلها عندنا وحلقة بصنما إنه سومالي أنا ميهن وحنو نهي سومالي لان كوي عنيقة إلها معارض كإبذي عنيقة أقوان سيدو قيب سنتهي إلهي سيي أو تعال ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay nabad gasho haddana ruxuubta yar ee aan deganahay ee gobolka Sool idina anigu uguma bariya tagin hadday shalay socolaadi jirteen xoog iyo sanfarood baan ku difaacay maanta oo ay tahay ummadda Soomaaliyeed kililka u kala go'dayna halkaasay degan tahay waxaanu xiriir la leenahay oo raacanay oo mabda ay isku raacnay kaano ariga kala soocanno annaga shalay adaro Ismaaciil ay nidhi durugtay ceebtii annaga nidhi waataad geed deeblow yaacayseen ee ku sii socoteen ciidanka iyagu mid loo sacabtumo maaha mid afar nin meel u fadhiisata maaha wuu guuleysanayaa sida odayaashii hore bay u sheegeen dhammaan shacab iyo mid ciidana iyo mid ganacsada kulli hadafka waa ka midaysanahay isku meel baan uga soo jeednaa waxa weeye maanta dalkan iyo dadkan dhibaato uma baahna waxa weeye maamulka Soomaaliland iyo ciidamadiisa waxa weeye waa la gudub taaganahay ka goobta ku jiray waxa weeye difaaca ku jira ka maqan mabdaas uu la qabaa uqaasha iyo waxgaradka iyo isimada xidhan ee reer Soomaaliland si shuruud la'aan u soo daa oo ka mid yahay boqor Buurmadow codsi weeye maanta oo bishu tahay 28 May waxaanu joognaa magaalada Guumeys oo ka tirsan degmada Yogoori waxaanuna ku qabanaynaa shir saxaafadeed taageero ah oo aanu ku taageerayno ciidamada Soomaaliland ee jiid hore iyo dawladda Soomaaliland dhammaanteed baanu ku taageerayno wixii Soomaaliland ah iyo siyaasiyiinta iyo hawshu sida u socotaan ku taageerana ayaanu halkan ku qabanaynaa waxaan leenahay waanu hambalyeynaa ciidanka qaranka ee jiida hore waanu taageerana hadii aanu nahay deegaanka degmada Yogoori deegaankan aanu joognana laba calan ma wada sudna hal calan baa sudan calanka sudanina waa Soomaaliland wuxuu yakun hore jeclaa inay xabaal ugu kiseeyaan kaskaabkiina naaguhu way kari lahayn markii kalxanta iyo gacanta midkeebku iga gaadhay karaama seegin habaar leegu kari waaye kuwa jecel inay aan marto ama dhinto ama technical ama magaranaysa hawlaha la farfareeyo war karaama seegina waxaanu kale oo taageero u gudbinaynaa hiliyo hoobale ciidamada qaranka ee ka difaacaya cadawga hadiya habeen u diyaarsan Samiir Saciid Bilaji TNTV Las Anad